farxiyo ciise oo 5tii bisha Juulaay sanadkan ku guuriyay magaalada Dhuusamareeb caasimada Galmudug laguna aasay qabuuraha ayaa xalay ilaa iyo shalay suuqa la soo geliyay warar sheegaya in qabrigeeda laga maqlayo codad iyo dhawaqa muujinaya nolosheeda. dadka magaaladaasi Dhuusamareeb iyo wariyaal ayaa ka soo galay Facebook live qabuurahaasi si loo qodo maanta. warkan ayaa waxaa loo saariyay sheekh kamid ah sheekhyada magaaladaasi oo lagu magacaabo Sheekh Maxamed Cardoofe. sheekha ayaa beeniyay warkaasi. warkaas wax ka jira male anigu cid aan ku iri gabadha nool iyo dhimashada midna waxaan ka warhayay midna ma jiraan qaadan jirin weydii cidii warkaas keentay aan waxa lahay ka alle qof gabadhaas inay dhimatay xataa ma ogi waa iska bini'aadamka arrimihiisa shaydaan qofkiisu waa iska badan yahay anigu laakiin hayo haba yaraatee barnaamijkaas waxaan ka ogahay iyo cid iigu timid iyo cid aan kala saahirin ma jirto alle ka alle abo waxaad iibin nin ordaya iibin oo gabadha cideedii hooya maqaan qaraabo xilaa hadda ay tahay marka inaad fadlisay kadib anigu waxaan ka ogahay ma jiraan alle ka alle qofkii soo sheegay iyo meeshaad ka keenteen alla soo raacay warkaas waa inaan noqdeen haddana waa ka sugaynaa dadkii warkaas ka keenay baaqaya alle ka alle anigu dambigaasna ma sheego cidna qayb kama hadlo alle ka alle waxaan ka ogahay male yaan fasaadkaas iyo dambigaas meeshaan la dhibin muslimka la dhibin anigana yaan la igu been abuuran waligayba ma dhin waxaasa meeshaas ka jiray waxaasa ka dhacay ayo ma taqaana dadka masaakiinta muslimka ugu dhibin dadka waa la dhibayaa nabi maxamed alla dhigo leeyahay waa sixiroola waa shaydaan waa mid waxba lagu sheegay annaga allahin ka alle baba dhintay jamashada gabadhaas oo ka warhay waa noo shaana ma dhihin waxaan ka sheegay qaar ayaa adduunka ama Soomaaliya lagu arkaa warar been abuur ama waxa loo yaqaan propagandada ay dadka suuqa soo geliyaan si kastaba ha ku timaada. arrintan ayaa la yaab ku noqotay dadka Facebook ka daawanaya ku nool caalamka iyo Soomaalidaba. wariya Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed Cabdinaasir Qujuufa dulqaad media freelance journalist and photographer.